نبي محمد باكله الله عليه الصلاة والسلام إذا علم كوينه لدقيسته أما عد كوينه بني آدم ولا قدرية ما جرته كاللباد واحد كتبتن وقلت قدون تا مذاهب العلماء تاسي waxay keensanaysaa culimada iyo aqwaashooda iyo qadarintooda iyo aaraadooda kala gadisan inaad barato markii hore waxa lagugu soo rabeeyay madhab fiqiya ama wax la mid oo ra'yi qolo qura ah laakiin mar haddaad kutubu sunna timi raggii ragga ahaay oo dhan aqwaashooda aad ugu iman doontaa walil culamaa iyo madaahib alculamaa taa waxaa laga faa'iidaaya ugu horreeya wax weeyaan sicatu sadr inaad walaalkaaga mukhaalifkaa laabtaadu ay aqbali karto markaad aragto rijaalkii waaweynaaye muslimiinta oo axaadiistaa nebiga wada daliishanaya calayhi salaatu wassalaam oo aqwaal kala gedisan iyo aaraa kala gedisan leh oo madaahibi saxaaba iyo madaahibi taabiciin iyo madaahibi salaf saalix oo dhan aad ku dhex arki doonto waa cilmi aad u ballaadhan oo la ballaadhni xoogaad ka faa'idi doonto waxaa kaloo ku jira dhalinyaradu inta badan waxay yimaadaan oo yidhahdaan sheekh taariikhda xaggaanu ka akhrinaa inta badan kutubtaana maqashaan ee kutubu taariikh la yidhaahdo laba fannuun bay ka warramaan imaa waxay ka warramaan dowladda iyo madaxdeedu siday isu beddeshay ama macraka iyo jihaad la galay umay ka warramaan waa labadaa shay umay ka warramaan ama taariikh ulumma ummadda taariikhdeeda dhabta ah waa taraajim alculamaa waxaa ugu tegi doontaan fanniga kan dhexdiisa markaa rijaalkaa sanadka ku taxana sheekhu hadda idiin taxaya dhegtiinu wada maqlaysay marka laydiin tarjameeyo nin walba ama casrigu noolaa ama cidduu la dhaqmay ama nimankii madaxda ahaa iyo aqwaashii dhex martay ama axaadiistan in badan aa arki doontaan xadiidku waxna waxay yidhahdaan waa sababu lwuruud alxadiid midna waxay yidhahdaan waa sababu iiraad alxadiid mid waa nebigu markuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sababkii keentay inuu warkan yidhaahdo midna waa saxaabigii ama ninkii daliishanayay sababtii keentay inuu xadiidkan dadka u wariyo marka taariikhtii dhabta ahayd ee muslimiintana halkan baad ka dhex baranaysaa taraajimta culamada iyo ragga sanadka ku taxan ayaad ka dhex baranaysaa idan waxaan odhan karaa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaad degta u raariciso diinta dhammaanteed aad baranaysaa iyadaana ah sharaxii kitaabka alle subxaanahu wa tacaala haddiiba culamadii hore ay safri jirto hal xadiid ama laba xadiid ama hal kitaab ama ay u safri jireen idinka lix kitaaboo safara idin yimi lixdii sunanka oo safara ayaa idin yimi marka inaad ka caajistaan ama daashaan waa ceeb warkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cid sida oo idinka idiin soo safartay oo idiin timi haddaa hesheen waxay u baahan tahay ina aad ugu dhaganugulaataan aanay idinla cusnaana kutubta axaadiista ku qorani sunnada saxiixa ah oo dhan يعني مثلا إمام الذهبي في سيره وحكوت المامي وزها 4000 حديث إمام ابن الحجر العسقلاني في نكته وحكوت المامي 4400 حديث يعني وحكني واحد حديث كي يكون صور نغنغنا يوبدني أما الروايات كلا قديسا تاسنا وحي كان سنة راس خضو إن تصفي عنه حديث كوكو قالوا وأدرها سخضو مركا وحن أنو إذن لا يهيون hadday nimca jirto nicmooyinkii ugu waaweynaayo safara idin yimi oo ah warkii nebi maxamed in la idiin furfuro iyo aqwaashii culammadii salafu saalix inaad aragto intii yarayda hore aad haysatay uun inaad in badan oo kale ku darsato oo diinta si dhaba u fahamto marka aniga warkaygu wuxuu ku kooban yahay sheekhana waan u ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay ha ka abaalmariyo sunnadaa uu faafinayo warkii nebi maxamed in dadka la wada gaadhsiiyo iminka war kalaa dadka la gaadhsiiyaaye waa khayr aada u badan waxaa laga yaaba wadaadada halkan idinla jooga warkaalay muxaadaro noo gala inaa marsiin weydaan laakiin sheekhu halkaasuu idinka soo safray inuu 6 kitaab oo sunnadii nebi maxameda wax idinka akhriyo innana waxayna saaran markaa inaynu u dhaganugulaanno oo si fiican u dhegaysanno ardaydana duuduub ahaan waxaan leeyahay dhulka la gedisan baa ka timaadeen dhaqamo kala gedisan baa la timaadeen waa madaahib fiqiyo kala gedisan waa suurtagal inaad soo akhrisateen ama kuwa caqadiyaba oo kala gedisan laakiin halkan waa warkii nebi maxamed waxaa hore dhan waxaa nasakhaya warka nebi maxamed
marka wuxuu u baahan yahay warkaa nebi maxameduun inaad dhegta u raariciso oo aad xoog u dhegaysato oo guntamahaaga yaryar ay kaa furmaan wasala allahu calaa nabiyina